وصرفها يسكبدل كالعجلات دولة كساو قار دلال بدل وشتي أو قار أي يشل عجل كسا أو العجي أي العجلة في الجليسنا وحلو بهاي أي يلا صنايو صرف يسكبدل وحي وحنا صرفتها فوركس أو أي العجل اللي بدشان dalbada kale ama qaarad ama lacag taas cid leh cid kale la falgelayso waxay markaa suuqay adoo suuqan waa suuqa dunida ugu facaweyn leh oo ugu balaaran waxayna caawa ku eegi doonaa suuq sida yaalana waa noocee sida looga shaqeystaa waxaynu soo kala fiirin doonaa qaabka iyo fursadaha iyo cilmiga ay bixisa akademiyada iMarkets Live waxaynu eegi doonaa bal qaabka lafteeda runtii akademiyada waxay eegayna marka hore akademiyada cilmiga bixisa waa cilmiga forex ama cilmiga foreign exchange foreign exchange ama suuqan forex waa suuqa dunida ugu weyn waa la financial market waa suuqa caalamka ugu balaaran ama dunida ugu facaweyn maalin kasta waxaa jira macaamil dhaqaale oo la kala bedesho lana kala sarifto hanti lacageed iyo adduunka dhaqaale oo lagu qiyaaso 5.3 trilyan oo dollar طبعا waa 5.3 trilyan maaha bilyan maaha milyan waa trilyan haddii fariisino dhaqaalaha waddanka Japan sanadka dhan Japan waxaa lagu sajadiisiga dhaqaalaha Japan shaqaysto 5 trilyan waana dhaqaalihii saddexaad ee dunida Japan laakiin suuqa forex sarifka maalinle waxaa u 5.3 trilyan ayaa ah dhaqaalaha maalinlaha suuqa ugu xooga badan ama ugu xawliga badan dhanka dhaqaalaha dunida suuqu wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood 5 maalmood oo weekii ka mid ah 10 sabtiyad ayuu suuqu shaqeeyaa laakiin shaqada 24 saacadood suuqu shaqeeyaa suuqa kan qofku wuxuu isticmaali karaa aalad kasta oo caqli ama smart device sida computer mobile sidoo kale wuxuu qofku u baahan yahay internet suuqani wuxuu ay ganacsiga ku sameeyaan oo inta badan dhaqaale mariyaan hay'adaha dhaqaalaha ee dunida ugu waaweyn sida dhaqaalaha dunida World Bank bankiyada dhexe ee ururada shakhsiyaadka caadiga ah ganacsatada shirkooyin dalal iyo gabihaan وسوق بحال على global market وسوق dunida oo dhan isku xidhan وسوق forex waxa uu yahay suuq qofku si xor u shaqeysto waana suuqyada la yaqaano open source market oo qof kasta uu ka qayb qaadan karo kuna biiri karo waxaan eegaynaa markaa suuqa forex qofku sidee ugu biiri karaa qofku suuqa ugu biiri karaa suuqan maadaama uu haysto adeegyadii suuqa ku xidhayay ama device-yadii ama aaladihii suuqa ku xidhayay وقفوا أول بيتي إنه يستوصل سوق أو قش رئيس الحرب. حاجة الشيء سوق فوق حرية ولا هذا بروكر كوح ودلال كوش ورجال ياسي توصينا سوق تفضل. عند السوق عن فوركس لهذا شيء يقول به سن وقرا قال السن لما ورا كرا بيكمل دعاء كرا يتهيأ لقتها وأقول سوق ويقعد برا السوق وادقتها قاق السوق كذي وقش رئيس. haddii aan aqoonin suuqa kan iyo qaabkiisa iyo argambali waxaad samaynaysaa qamaar marka hore waa inaad barato siduu suuqu u shaqeynayo qaabka faa'iidada looga dhalanayo lacagta sida looga qaadanayo wanaagsan sida loo xulanayo lagu balliqanayo qaabka looga beerayo waa inaad la socotaa oo aad aqoon u leedahay suuqa kan saameyntiisa meesha laga gelayo qaabkiisa iyo nidaamka oo dhan akademiyada iMarkets Live waa akademiyada dunida ugu weyn ama ugu balaaran ee laga barto cilmiga forex waxaa la aasaasay 2013 waxay ka jirtaa in ka badan 140 dawladood ay ka jirtaa akademiyada tani waxa weeyaan waa iyadoo aanay ugu lahaan karin waana mid faa'iido laga heli karo si la waxay leeyihiin nidaam waxbarasho oo dhisan waxa ka shaqeeya in ka badan 100 shaqaale ah oo leh dad 100 sano oo leh ka badan akademiyada tan
waxa aasaasay ninka lagu magacaabo secretary qosol iyo 20 sano khibrada oo la suuqa waxaana ay mid yihiin ahad dunida ugu weyn ee cilmiga nafsiga watay slide ninka aasaasay waa Christian khibradu wuxuu leeyahay 22 sano ka badan ilaa 25 sano وانا اساسها هي امرها اكاديميه الزبالة فكرتي كل شيء اساس كاكاديميه وحي هي دمركي اي بدلتين بدل وقصه ان اون درتي اما اللي قرا لا سوقا لين اديجيدي iyo wixii ku xiri lahaa ayaa Christian iyo teamkiisu waxay dhisheen oo marka sabaableen inay asaasaan akademiyad dadka lagu barayo taas waxaa keentay baahida in dadkii ay suuqyada bartaan shaqaystaan waxaa leeyahay ka shaqayso lacag oo kana faa'iida akademiyada ka muuqata shaashada swap trials akademiyada iMarkets Live وأدين أي مقصود رياض سوقي أو الصوب عليه لا سوقي سلامك أكيد سوق أو صاد ولا إيش أو صاد في كديمين iMarkets Live سيدو كل حاجة برنامج كنا لوراني سويب ترايلز برنامج كذي هو برنامج وروتي بيسي سيغشي صلوها إذا ما كنا على كريستياني وأنا من دمه إلى فايدين. أكاديمية وحيصير كلام حساب باكج أضو بلارن أو لأضو هارمونيك باترن سكانر أما لو يأضو هارمونيك سكانر. وبرنامج ويب سكانر حقنا هو السوق قوة حقيقية وحوليه يتوب ما حاب ياديني أبي يقول فريق. وسوق يحسن وأضو وأدمعها يدير الكيسو. وسوق لقاء سوقي وأدو تصورات وكذا ستوسوقيش كلية تحضر هارمونيك سكانر وأحكم إذا أديجيد رجوله بسان وبرق على السنة أكاديمية درجة بحاول أستعيرات سويسو أعطوته $1 أما وكمناته هارمونيك سكانر تقدر استعمالاتي كيبو ولا ربنا نفس أيدين وأنا مديك السواد حاجة قدام تعمل غاب كيف عرفت هذا بس وسهلة وحقوق وغيرها سوقي أون إرادشو طبعا لقلي قاف لقلي ستوب وصل خسارة قاضي إذا ما يسترى كل شيء اللي يجي فبرنامج 6 ساعات وقت يسوع سلام كرم وبرنامج هذا حقوق أكاديمي وبرنامج أبوكيس بلوغة بركب روح له قال لحد كتبنا أرفاس قال سريع كتبوا حلقوا برا تيجي كلا أنا ليش تعب كلين تعب تجيب حلقوا برا ويقدروا يسووا السوق الفائدة توصل كذا اليوم أيضا إذا قعدنا يسوي سوى ذكر وعشرة دبي أما 10 دبي فضلا يوم معلمين وحنا مركز أيش كسوق اللي عندنا كلامي هذه كل شركة تطلعتها وحول مسؤول شركة كلام بيسك waxay kaadi codku aad buu uga go'ayaa insha Allah taala marka saan filayo codku aad buu uga go'ayaa marka waxay kaadi insha Allah taala iyadoo oo taas ka fasiixsan insha Allah soo dhawaada wixii su'aalaad qabtaan barnaamijka dib baan idinka jawaabinaa haddii la idmo soo dhawaada insha Allah dhammaantiin marka su'aalihiina nood garaysa casharka isku dina dhageysataan marka wixii su'aalaad qorta
dabeedna marka barnaamijku noo dhamaaday su'aalaha laga jawaabiyo haddii la idmo dhammaantiin soo dhawaada waxaa asaasay ninka kale ado Christopher Terry oo ah gudoomiyaha guud ee akademiga ISIS Delatore waa gudoomiyaha dhanka dhaqaalaha Alex Morton waa xigeenka qaybta guud sidoo kale Ifan Tabia ayaa ka mid ah boardka sare ee qaybta iibinta akademiyadan waxaa la abuuray ama la sameeyay sanadkii 2013 bishii July akademiyad si gaar ah loo leeyahay dayn kuma laha kartid iyo kuma laha karaan maadaama ay yihiin goob waxbarasho akademiyada tan iMarket Life baahida keentay la abuuraa waxa weeye markii inta badan dadyoga suuqa ku cusub ee soo gala ay ku qasaareen ama ay ku fashilmeen gabi ahaanba ganacsiga suuqa ay u yimaadeen markii ay ku fashilmeen ayaa khubarada tan inta iskaashadeen waxay abuureen akademiyada dunida ugu weyn maantay ee suuqa laga barto kadibna waxay dadka u suura geliyeen oo ay u saamaxeen inay aqoon iyo cilmi siiyaan barnaamijyada kala duwan ee hayaan aad ay badan yihiin akademiyada tan qofku marka uu doonayo inuu ku biiro ka hor waa inuu ogaado waxa uu ka helayo akademiyadan waxa koow ay bixisaa barnaamij la yiraahdo iMarket Life Academy waa academy suuqa ku baraya oo aad ka baranayso oo aad ka soo bilaabayso casharada basic meel bilow ah ilaa aad ka soo gaarayso meel advanced oo sare waxaad daawanaysaa casharadii oo duuban oo diyaarsan oo qaabaysan oo habaysan marka casharadaasi daawato kadib waxa aad fahmaysaa qaabka suuqa u shaqeeyo istiraatiijiga akademiyadu ay ku shaqeyso sida faa'iidada suuqa looga dhalinayo qaabka loo shaqeynayo sida loo analyze garanayo ama loo baarayo suuqa akademiga kan cilmigii oo heer bilow ah oo qofku uu meel hoose ka soo qaadi karo ilaa heer sare ayuu ugu imanayaa waxaa kale oo jira barnaamij ay bixiyaan akademiyada tan oo la yiraahdo iMarket Live TV ama IML TV barnaamijka kan IML TV waa program live ah oo si toos ah ay u soo fariisanayaan xirfadleyda iyo khubarada suuqa waqtiga dheer ama waaga dheer ka shaqaysanayay kuwaas oo qaarkood ay leeyihiin khibrad 20 sano 30 sano 15 sano 10 sano iyaga ayaa si toos ah u soo gelaya live marka ay live-kaasi soo galaan muuqaalka tooska ah way sharaxayaan suuqii iyaga sameynaya halka ay faa'iidada ka dhalinayaan iyo suuqa halka ay kaga jiraan ayay markaasi ka soo gelayaan faa'iidadii halkaas ay toos uga sameynayaan adiguna waxaad seetaa ama haysataa laptopkaagii ama mobilkaagii step kasta iyo talaabo kasta oo ay qaadaan step kasta iyo talaabo kasta oo ay qaadaan ay markaasi aad toos ula soconaysaa waa hubaal haddii aad la jaan qaado habka macallimiinta live-ka ay ku timinayaan ay suuqa waxaa kaloo bixiyaan barnaamij la yiraahdo Harmonic Scanner ustaadka ayaa inoo sharaxi doona si toos ah oo taabsiya inoo tusi doona Harmonic Scanner waxaad awood u yeelanaysaa inaad suuqa adigu baadho oo si toos ah u taxliiliso oo aad suuqii adigu la soo baxdo halka faa'iido ay tahay lacagta la sarifayo nooca lacagaha falgeliya iyo halka laga raacayo faa'iidada iyo barta laga tooliyo waxaa kale oo jira barnaamij uu ustaad Mustafa inoo sharaxi doono isagana waa akademiyada ay bixiso oo la yiraahdo Gold Cup barnaamijka Gold Cup waxa weeye isaguna barnaamij aad iyo aad u ballaaran oo aad u weyn oo suuqa aad ku fahmi doonto oo aad ku baari doonto haddii barnaamijkaasi aad fahanto waxa hubaala oo la hubaa oo shaki la'aan oo aan cad saarnayn in faa'iidadaadu ay noqon doonto mid toos ah waxaa xiga markaa barnaamij kale oo la yiraahdo Web Analyzer barnaamijkan Web Analyzer waa barnaamij kale oo kuu suura gelinaya oo awoodda kuu siinaya inaad suuqii baadho suuqii adigu taxliiliso adigu aad la soo baxdo barnaamijka Web Analyzer waxaa ku jira tools aad u casri ah meel aan ahayn akademiyadana laga helo barnaamijyadan aan idin sheegay kaliya waxa bixisaa akademiyada iMarket Life waxa ku xiga oo soo raaca barnaamij la yiraahdo IML Poundsback iyo barnaamijka Live TV ama Gold Cup oo insha Allah staff ku inoo tusi doono barnaamijyada kaliya waa tools aad ku awoodayso inaad adigu suuqa ku baadho waxaa jira barnaamij kale oo akademiyada ay bixiso oo la yiraahdo Swap Trader barnaamijkan Swap Trader waa barnaamij ballaaran oo ay suuqa ku soo diyaariyaan kuna soo habeeyaan barayaasha iyo xirfadleyda iyo khubarada ku xeesha dheer suuqa kan forex iyaga ayaa suuqa soo diyaarini dawladdu way ku soo dirayaan barnaamijka kaysaga Swap Trader
ومن كمية أديجينا لوجود تلوي بحسها أكاديمية هذا ما أكاديمية ده علمي عاجعه علمي اللي جه ليه قفكي فايدة دي سورة كحرة هاي سو سمايو سلام كان علمي عاصمة لرديالو سيدين كوجلاوي سيدين ما رجع بالنقطة أكاديمية تشاهد مركز دوري سويرات كم بالنقطة واحد حريص هذا غال لما بقول يستديو $2 كأمريكا لما بقول يستديو $2 كاسي واستواء جلتها صدق عشان هراء أو بيش الخبات markaad isdiiwaan geliso aad bixiso $280 waxa muhiim ah inaad soo raacdo referral link yani linkigii ama qofkii ku keenay ee kugu soo diray akademiyada oo dabcan isaguna kamid ah ardayda ama xirfadleyda ama barayaasha ama suuqayaasha akademiyada markaad soo gasho $280 bixiso laba hab ayaa ku yaala horta inaad ahaanayso arday oo aad doonayso inaad suuqii adeegyadii kugu xiri lahaa ka hesho akademiyada qalbigiina aad toos halkan uga hesho haddii meeshaas aad rabto akademiyadu maadaama ay tahay goob waxbarasho waxay kaa rabtaa lacag dhan $160 waa fiigii akademiyada maadaama cilmi iyo adeegyo kala duwan websaytooda wax ku baadho kuwa wax kugu soo dhacaan inta baad helayso haddaba qaarka labaad waxaa weeye inaad noqoto become an independent business owner وأنا ضبطه of business owner أو جرا سكسة ما أكاديمية ده هي ده اللفت لك شغية شلون شغية يا مكان أكاديمية ده of كمركا ودور يدرو كشغية بس مركا كوبات عادي مركا عن صوت كشو يعني أكاديمية دي كم الضغطات وحتكون صدر يسهل لبقف أو كاستمر يسهل لما يقف واحد يسرع عيال لك جاي الريفير اللي كي جاها أو اللي كي جاي تفاعلها dadku magacyada way ka simi karaan wax adiga gaar ah ee akademiyadu ku siinayso ID number gaar ah ayaad yeelani to referral link toosana wad yeelanaysaa ka soo qaad adiga ayaa soo galay akademiyada marka akademiyada soo gasho haddii aad ku soo darto laba qof waxaad noqonaysaa free taariifigii bil kasta laga rabay ee $126 ah meesha uu ka baxaya marka fiigaasi culus uu meesha ka baxo waxa weeye free baad noqotay laba qof baad ku soo dartay shabakadii haddii marka aad ku soo darto qofka saddexaad ama qof saddexaad aad ku soo darto isla markaana aad noqoto qof saddexaad baad ku soo dartay waxaad noqotay IBO ama independent business owner waxa aanad sidoo kale tahay customer ardayna waa tahay markaad qofkii saddexaad ku soo darto akademiyadu waxa ay ku bilaabayaan fee ama mushahar ay ku bilaabayaan mushaharka ku bilaabaan qadarkiisu waa $150 bishii waxaad qaadanaysaa mushahar dhan $150 waxaad gaadhay darajada la yiraahdo platinum 150 yani $150 ayaad ka mutaysatay oo free ah oo aad ka shaqaysatay akademiyada nidaamkii markay feega ku bixiyaan waxa weeyaan bir week kasta waxay ku soo dirayaan $730.5 waxa weeyaan marka bishii maxaa ku jira bishii usbuuc baa ku jira afar baa ku jira afartaa usbuuc ee bisha ku jira usbuuc kastoo ka mid ah $730.5 ayay ku soo dirayaan waxay taasi ku dheer waxaad ku soo dartay saddex qof kasoo saddexdii qof si fiican baad u aragtaa sawirkaas saddexdii qof markaad ku soo darto iyadoo mushaharkaagii uu yahay $150 oo mushaharkaasi bishii uu yahay oo aad qaadanayso ma waxa ku dheer wax la yiraahdo bonus waxa weeye waaye lacag abaalmarina waa abaalmarin ama biyacmaal leh ama bakhshiish leh waa lacag lagu siinayo abaalmarin dadkii aad keentay dartood lacagtaas iyada markaad qaadato waa $35 qofkiiba tusaalahaan saddex qof baad ku soo dartay midkiiba $35 oo waxaa lagu siiyey bonus ama biyacmaal ama abaalmarina $35 markaad u geyso $35 oo aad u geyso $35 waxay noqonayaan $105 markaad u geyso fiigaaga bisha oo $150 ah waxay isku noqonaysaa $255 soddonka maalmood ee u horeeya waxa suuragal ah ama waxa xaqiiq ah inay akademiyada ku siiso lacagta intaa leeg waxay kugu siisay oo kaliya dadaalkii iyo kartida aad samaysay waa system caadi ah laana waxa weeye shirkadaha caadiga ee telefoonada ama ha noqdo golis ama telesom ama rugud marka qofku uu telefoon badan iibiyo yani halal badan iyo prepaid badan abaalmarin baa la siiyaa
وأبل برين كرتبات سميسي دلال بات سميسي والو أبل برينيا واي markaad $150 hesho waxaad samaynaysaa marka maadaama saddex qof keentay nidaam la yiraahdo team building strategy استراتيجيتي team kaaga aad ku xoogay lahayd team kaaga aad ku dhis lahayd استراتيجيadaas waxay tahay adiga ayaa markii hore soo galay akademiyada saddex qof ayaad ku soo dartay each of three mid kasta oo saddexda ka mid ah markuu saarahaan ninkaas odayga ay saddex ku soo daro kan kalena uu saddex ku soo daro kan kalena uu saddex ku soo daro asxaabtaadan iyagu saddexda ee markii hore akademiyada aad ku soo dartay iyagu mushaharkoodii mid kasta wuxuu noqonayaa maxay $150 laano saarahaan ninkan odayga ay saddex buu keenay ninkana saddex waxay noqonaysaa markaa adiga mushaharkaaga kor buu soo kacayaa waxa uu noqonayaa $600 Mareykanka $600 Mareykanka oo mushahara oo toosa oo bilaa baa akademiyada kaaga soo dhacaya okay nidaamkii haddaynu ku xisaabino 4 wiigaha maadaama bishii 4 wiig ku jira wiig kasta waxaa ku imanaya oo ku soo dhacaya wiig kasta waxaa ku soo dhacaya $150 Mareykanka ayaa ku soo dhacaya waa tahay waxaa ku dharintaasi haddaynu ku noqono nidaamkii bonuska waxay nidhi saddexdii qof ee aad keentay waxaad ku heshay mid kasta $35 oo bonus ah ama biyacabaala ama abaalmarin gaar ah waa tahay saddexdan each of three mid kasta oo saddexdan ka midii marka uu qof ku soo daro ninkan odayga abaas qof keenay $10 baad ku leedahay waxaad ku leedahay $10 qofkan uu ninkii odayga ahaa keenay ama qofkii uu keenay ayaa qof kale sii keenay isagana waxaad ku leedahay $5 waxaa la yidhaha generationka saddexaad baa leedahay generationka koowaad ee aad keentay adigu waxaad ku heshay $35 kii labaad ee uu keenay qofkaad keentay $10 baad ku heshay qofkaad keentay kuu keenay kuu sii keenay waa qof caliga waa gacantii misaad waa gacantii saddexaad waxaad ku helaysaa $5 okay waxaynu baraynay adigoo help your tree saddexdaadii waxaad ku caawisaa to get their tree inay saddexdoodii helaan way sii soconaya nidaamku waxaa sii soconaya nidaamkii dhisidda tiimkaaga marka tiimkaagu markii hore waxaad ka soo bilowday adiga ayaa bilaabay kadib saddex baad ku soo dartay saddexdii baa mid saddex keenay tiimkii 12 markuu marayay ayaad adigu waxaad gaadhay darajo la yiraahdo platinum 600 waxaana heshay $600 Mareykanka oo mushahara haddaba marka ay dadkii sii tarbaan sii farcamaan midba mid ka sii talaalmo oo tusaalahaan saddexdii qof ee qofkaad keentay uu keenay ee $600 aad ku gaadhay marka iyaguna mid kastoo ka mid saddexdii keeno mid kastoo ka mid saddexdii keeno oo tiimkaagu sii kala farcamay ay gaadhaan 30 qof صدقة حنا يستوجبان ضد كسامريسا أو أرضية يدن أي بيوسا أما independent business owners وحوشان كانوا بوديا أو نقوليا كون ورك أمريكا أو بلا كوكاس دولار حدين النظام كي أثر توي كوكاي منه ويكستوي حاجة ليس محي ما بقول يكون $10 كأمريكا وحاول أكاديمية وحالة وcollective interest وضد سكول سن هذا واحد شوف تحل كان سريع dadkan kala duwan adiga ka sii talaalbeen oo ay ka sii faacbeen mushaharkaagu waxa uu marayaa $1 asxaabtaadii kala duwanayna mid kasta mushaharkiisii wuxuu marayaa darajo gooniya way mushaharkaagu marka uu $1 marayo waxa ku xiga nidaam ballaarin nidaamkii ballaarin samarka compensation plan-kii hadda waxaynu maraynay iyadoo platinum 1000 qofku marayo $1 ayaad maraysay oo mushahara waa marka tiimkaagii uu isbihiisi marayo 30 qof oo isugu jira dad marketerisa iyo dad customerisa tiimkaagu marka uu marayo 75 qof ee 75 qof aad ku soo darto oo 75 ka qof ay sii kala talaalan yihiin mushaharkaagu waxa uu noqonayaa $2,000 Mareykanka waxaad gaadhay darajada le platinum 2000 waxaa ku xiga markaa inuu mushaharkaagu sii kordho mushaharkaagu ma istaagayo 225 qof tiimkaagu marka uu marayo waxaad gaaraysaa darajada leeyahay platinum 5000 $5,000 Mareykanka oo bilaa oo mushahara baad helaysaa waa marka tiimkaagu 225 marayo hadduu jiro qof garanaya qof tiimka ka mid ah oo darajadaas maraya soo qoro dabcan darajadaas waxa maraya engineer Maxamed Jaamac Sahal oo tiimka ka mid ah iyo dabcan engineer Sharmarke oo hadda fiisadeena gurashada way
درجة تاينا مركز جادو وتصير عرسها درجة ناس واحد كيف بيساعد درجة حتى وتوكل أو دولار كبريكا وتوكل أو دولار كبريكا سواء كان دولار كبريكا واحد كيف بتشي درجة اللي هذا بلاتينيوم كا بحارده قلت درجة كلا تشيرمان كلا تشيرمان تن مركز مريسو توكل أو دولار كبريكا كمان هلي ومركز تيم كاو كشم قول أو قف قريب واضح هذا الأكاديمية الثانية ده يضع علم ينو كهلينو وحبرشة ينو كهلينو وينو عشرة ديني لصعنا أيها حتى نروح نستاس أو لصعنا وحامي كلام تعليمات كلاين ستاس لصعنا وين نرش غيسرنا فالكلام هو حواس لصعنا وحبرشة وسوق قيمة كتير فإذا السوق ولا نكري كهذا صعنا هذا فائدة الكلام ديجنا تقولنا على الحوار وطن اسكو إسهل وحوار وحروبر waxaan ku soo koobayaa iyadoo qaybta dambe xisada aan ku soo dhaweyn doono ustaadkeena walaalkayga qaaliga ama walaashayda qaaliga ah ee qolkan iyo xisada live-ka hadda ku jira marka koobaad waxaan jecel lahay haddaanu nahay walaalihiidii ka soo horeeyey ee barnaamijka horu galay inaad ku soo biirtaan ood ka faa'iidaysataan fursaddaas iyo janiskaas qaaliga ah ee laba dhaafaanka ah waxaana muhiima inaad marka hore la tashato oo aad ku soo diiwaan geliso walaalkii ama walaashii fursadda tan qaaliga kula wadaagtay marka labaadna waa inaad fursadda tan iyada xil baa ka saaran waa inaad walaalkaaga kale ee muhiimka ah ee aqoonyahanka waa inaad gaarsiiso fursadda tan iyada waxaa looga baxayaa shaqalaanta waxaa looga baxayaa tahriibka dhibaatada stresska kala qoqobka kala waxaas oo dhan mushkiladahaas oo dhan waxaa xalkeedu uu yahay adigoo barnaamijkan ka mid noqda oo ka qayb qaata adigoo aqoontii faa'iidaysta cilmigiina faa'iidaysta shaqaystana akademiyada tan markaa waxay inoo furtay cilmigii cilmigii waynu helaynaa waxaa kaloo inoo raaca shaqadii aad iyo aad ba mahadsan tihiin waxa weeyaan qaabka wanaagsan iyo nidaamka wanaagsan ay noo dhegaysanaysaan xiisadu way ballaaran tahay waqtigu noo ballaaran yahay waase ku dheeraadaa filaya naga raalli ahaada ciladii hore nagu yimid qaybta dambe ee xiisada waxaa inoo wadi doona oo inoo soo tebin doona أستاذ مصطفى عادل وشوجا مجالة مقدشة وكمل الإنهار السريع جروب كده أستاذ أيام 6 أسبوع دوران أستاذ كل كونا ما يرى حيوفر من دون سؤالها سؤاله مركي يوفر عنها إن شاء الله خيار توقف الصقبلي وحاول سؤاله ينو يدين دوران أستاذ مصطفى هو حصده إن شاء الله وحاول خيارته أب يفرق بديه ملك الدول ويشوجات hoostiga ayaa kugu soo wareejinaya inta aan kugu wareejin marka waxa weeye ustaadku tusaalayaal muuqda ayuu inoo soo bandhigi doonaa insha Allah tusaalayaal muuqda marka ustaad la wareeg insha Allah programka وما تنتهي أفضل عجالة ما شاء الله سبق الله نكتب إن شاء الله تعالى ولا يدينكم مع السن وحنجعل الله كريم مرة من هذه الشغنة يعني سيدا ما العقل وصل لك وعرفنا إن نكون مع السن سيدا العقل وصل يعني مركات هذه مغلى سوون وهاجاك دمان أرضيدا معلمين تا أقولي أنا دكتور مدرسة بنو سلام يا مرلقات عدك يسلو مغشان عدك يسلو كل مال بوغنا وانشوغا مرلي مغلا ما شاء الله مع المحاجة ويغفر لها الله حدي الله يدمو مع ولكن محمد سيف عم بالو ولكن عبد الله ما شاء الله شرماكي وما سنته ولا عبد الله مقدرنا من السؤال عاد وقعدنا وحيرهم بان قدر ان شاء الله دون سؤالين قلنا دالدمو وهاجاك عبد الله العداله اد بو مهدسن yahay شرماكي عودك اسكح دوال شرماكي ها ومهدسن العداله وحسد عاوه si fiican oo qurux badan lagu jeediyay aad bad ma santiin dhamaantiin walaal ka soo qayb galay madasha xisadan ugu talagalnay alaabaa oo kale walaalaha cusub ee barnaamijka in ay ka faa'iideystaan barnaamijkana ay bal wax badan ka ogaadaan
marka way fiicanta intayna soo gelin inaad su'aalihiina aadna weydiisaan oo barnaamijka aad concept fiican ka heshaan Cabdillahi Alcadaala laba mawduuc ayuu barnaamijka ku sharaxay ku soo koobay waa dhinaca forex oo ah sarifka lacagaha qalaad oo qofku ka shaqaysan karayo hadduu mobile iyo internet haysto cilmigana uu barto halka cilmiga laga baranayna uu inoo tilmaamay waxa laga baranayaa buu yiri imarketslife.com ayaa laga baranaya website-ka laga barto ardayguna marka uu soo gelayo wuxuu bixiyaa $218 bil kastana dhow marka dhamaato wuxuu bixin doonaa $162 wuxuu kaloo inoo sharaxay fursadda marketingka ah oo iyaduna lacag fiican laga shaqaysan karayo oo ah chance aad iyo aad u wanaagsan dhalinyaro badanna ay fursad ay u noqotay ay lacag samayn karayaan nuxurka mawduuca barnaamijka caawa intaas ayuu ahaa oo barnaamijku qaadaa dhigay soo kale wuxuu Cabdillahi Alcadaala inoo sharaxay fursadaha IML ku jira dhanka waxbarashada sida wuxuu inoo sharaxay hormone scannerka oo kale wuxuu kaloo inoo sharaxay swipe trade-ka si looga faa'iisto wuxuu sharaxaad ka bixiyay gold card iyo tea card aad buu u dul istaagay barnaamijka oo dhan iyo IML waxyaabaha ku dhex jira barnaamijka sida walaalkeen uu ku sharaxay waa fursad qofkii fahmay oo ku shaqaysan karayo lacagna ka shaqaysan karo isagoo gurigiisa jooga haddii uu haysto internet uuna markaa wax barto oo waqti geliyo waxbarashada geliyo xaqiiqdii marka dhalinyarada barnaamijkan sidaas weeyaan waana fursadaasan dhammaantiin ila wadaagaynaa dhalinyaro badan baa qolka ila joogo xagga sare ila saaran oo kolley barnaamijka ila dadiin doona haddii la idmo su'aalahana qaadaa dhigi doona marka guud ahaan barnaamijka noocaas ayuu ka saabsanaa dhanka darajooyinka iyo marketingka la gaadho mar walba waxaan ku soo bandhignaa Facebooka aan leenahay ee la yiraahdo maxay hadda waxaan filayaa muuqanayo Sunforex online page ma muuqanaya Facebookaas hortina ma yaala maartan waan isoo qor hadda artaan Facebookaas qof follow ba isku day oo maasantiin in marka xisada dhamaato Facebook inaad search garisadaan hore ugu jirin dabeedna isku day inaad like saartid si marka war kasta ama warbixin kasta oo ku saabsan forex iyo IML aad uga heshid page-kan oo gaar u ah shaqadaas haddii la idmo waxa la soo geliyaa oo ay tusayaa dhalinyarada darajooday hadda halkan oo kale waxa u dambeeyay 10kii xalay la duubay weeyaan ku saabsan gold cupka macal Cabdiqafaar Duubay halkan ay ka daawan karaysan dariiqdan toos ba u daawan karaysan laakiin marka hore arday kasta ay waynu page-kan like saaraa Sunforex si uu markaa wax walba la soo geliyo helo haddii la idmo waxa u dambeysay xalay oo kale sawirkan gabadhan kaalinka koowaad gashay waxaan la u jeedaa 9 minutes ku gaadhay 9 daqiiqo ku gaadhay darajada Valentine 150ka oo ruqiyo oo joogta wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi oo 9 daqiiqo gudaheed ku gaadhay darajada hadda laga sheekeynaya 150ka 150 bishii qaato iyo $105 oo commission $255 ay qaadanaysaa haddii alla idmo bil kadib marka waa taa recordkeedii waxaa kaloo arki doontaan inay tusayaa dhammaan maana tusayaa waxyaabaha la soo gelin Muammar iyo waa sanadiyada dhan kalmaha galay dhammaan wajidan waxa ay markaa waxa weeye waa ay tusoo taabsi weeyaan ka sharaxi mayno gabadhaas Hindiya ay joogtaa waxa darajada gaadhay wajidan waa Valentine 150 bay gaadhay ninka gaalkacyo jooga Maxamed oo garanaysa ma filaya wali ka tabu gaaray page-kan waa page-ka xogta rasmiga la soo geliyo ee Sunforex dhalin ninka wada Bashir Wali aragsan wuxuu joogaa jigjiga midgal teamka Sunforex meel kasta caalamka way joogaan sidii muuqanaysa ninka wada yaasna wuxuu joogaa Garowe waa Cabdiwali Gabayre wuxuu gaaray darajada Valentine 150 ma sha Allah ninkan kale wuxuu joogaa Burco wuxuu gaaray Cabdikhaalid Maxamed 150 gaaray page-kan marka qof walba isku day in aad marka like saartid ninka wada waa liiderka weyna Cabdinaafa Xasan Nuur oo hadda igula sugan magaalada Nairobi oo xaqiijiyay darajada Valentine 600 marka walaalayaal intaas ayaan ku soo koobayaa kan waxaan rabaa inaan soo taabsiyo ka dhigo insha Allah kadibna su'aalaha ayaan geli doonaa haddii la idmo walaalaha wixii su'aal qaba gacanta soo tagtaan insha Allah kelmad baan siinayaa marka hore Faisal Jaamac oo xagga sare saar insha Allah banalka wixii dhiirigelin loo ku taray insha Allah Faisal soo dhow haday maalis waan dhawahay injineere waan dhawahay salaamaya ardada iyo leaderska dhammaantood assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh barnaamijkan horta runtii waa barnaamij faa'iido badan iMarkets Live iyo Forex iMarkets Live waa jaamacadii aad wax ka baran lahayd wax la yiraahdo Forex yani qofna wuxuu uusan baran ma intifacsado uma helo
marka si aad suuqan weyn ee maalintii keliya lagu sarrifo $5.3 trillion aad ugu shaqaysatid yani ma howl yara dadaalka lagaaga baahan yahay inaad ku bixisid marka waa inaad iMarkets Life aad ka mid tahay family iMarkets Life inaad ka mid tahay markaas wuxuu ku sahlaanaysaa inaad si sahlan wax ku baratid in macallimiinta Soomaalida iyo macallimiinta iMarkets Life waa isla heshid inaad dadaashid kadibna aad guulo fara badan aad ka keentid forex suuqa forex sida teamkeenaba ay guulaha faraha badan ee isdaba jooga u keenayaan qof walba dadaalkiisa iyo kartidiisa iyo equity iyo iMarkets Life iyo facility ku hayso marka soo dhawaada waxa la waxa su'aalo qabtaan waa idinka jawaabi doonaa insha Allah soo dhawaada injineer waa garanta وهاجاك أبغى ما حسنت هاي فيصل وشو القاهرة ولكن عبد الله العدالة هذا مغليه ولا سلوا برامج غير النبأ إن شاء الله إنه ده سؤاله يقول الله الهوست يمكن هذا نقول إن شاء الله جنرال عدالة aad baad u mahadsantahay injineer maxamed jaac sahal doomiyaha Sun Forex aad baan ku salaamayaa leedarada kale iyo walaalaha kale kala duwan ee ku jira qolka kana aad baan salaami qaasatan leedarada uu kamid yahay Faisal macalinkeena weyn Farduus oo qaybta farsamada iyo abaabulka iyo xisadaha kan isku duwideeda hadii goor inoo qabisan ustaadku weena Sharmarke dhamaantiin aad baan idin salaamaya walaalaha mar kale soo dhawaada haddii aad codkayga u jeedaan oo maqlaysaan oo soo qora mar kale waa mahadsantihiin walaalaha kala duwan meel kasta oo aad daafaha dunida ka joogtaan mar kale waa walaalkiin Cabdullaahi Alcadaala oo jooga magaalada Burco waxaan leenahay soo dhawaada fursadii la idin sheegay iyo waxa weeyaan macluumaadkii aad deegteen ama aad aragteen mar kale waan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad noo dhageysateen ee waqtiga aad noo siiseen iyo sida wanaagsan ee markasta aad u jeceshihiin inaad ula socotaan fursadaha iyo janisyada kala duwan ee ku jira suuqani forex oo ah suuqa dunida ugu weyn iyo akademiyada dunida ugu weyn ee cilmiga forex-ka lagu galay adeegyada iyo toolskii lagu helayna bixisa ee iMarkets Life aad mar kale mahadsantihiin walaalaha qaybta dambe waa su'aalihii ama weydiimihii ku mudnaa oo insha Allah macallimiinta kala duwan ee ustaad Faisal iyo sidoo kale injineer Maxamed Jaamac iyo Sharmarke idinka jawaabi doonaan la idin kala qancin doono idil ahaantood waxaan codsanaynaa walaalaha qaar aan gacanta soo taagan karin ama codkoodu meel buuqa jooga tusaale ama aan joogoodu suuragal ahayn inay qaybta qoraalka noogu soo gudbiyaan su'aasha ay doonayaan inay weydiiyaan barayaasha khubarada suuqani forex iyo sidoo kale macallimiinta iyo liderada kala duwan ee Sun Forex markii la mahadsantihiin jaaniska ugu horeeyay caawa aan ku furayo waxaan siinayaa walaalkeen Cabdirasaaq UK Cabdirasaaq ayaan siinayaa dabcan Cabdirasaaq walaale waad hadli kartaa dabcan codka iska qaad halkii aad joogto ku bilow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cabdirasaaq UK waa Nairobi aan joogaa ustaad Maxamed Jaamacna waan iska warqabnaa marka waxaan kamid ahayna groupka IML Market marka rag badan oo martiya maanta cawada marti meesha noogu marka waxaan rajaynayaa macluumaad in ku filan oo hordhac ahaan way u heleen marka iyaguna waxaan rajaynayaa fursad inaan siiyo maadaama aniga habeenada kale aan ku badanahay meesha marka dadkaygu waa kaasa marka qof kastaba waxaan rajaynayaa martida inay gacantu ay taagtaan marka muhiimadda koowaad waa intaas marka tala bixin badan ba idinka hadda warka soo koobay marka taas intaasaan ugu bixi lahay marka fursadda xoogeeda cawada waxaa dadka martida marka iyaga bal aan xooga saarno su'aalaha ay qabaan iyo waxa ka dhex guuxayo iyo say wax soo maqleen bal intaas iyo wax hadda ku dhashay intay casharka daawanayeen wixii u soo baxay marka noodka ay soo qorteen wax alaala wixii quseeyo IML maqal waxay ka haystaan in fikir ayaan jeclaan lahay si wax badan markaas loogu bidhaamiyo marka intaas waa talo wanaagsan iyo tusaale fiican aad iyo aad baan ku jeclaynaa Cabdisaaq oo jooga teamka Sun Forex kamid ah ee ku jira dhalinyarada qabrata iMarkets Life markale waa ku mahad celinaynaa dabcan gubabadaada iyo taladaada insha Allah waana caawin doonaa walaalaha su'aalahana aynu soo weydiin doonaa qaasatan caawo kale su'aalaha waxa xaq u leh walaalaha cusub ee doonaya barnaamijka in la fahansiiyo iyo wixii su'aal ay rabaan
in looga jawaabo walaalaha kala duwan ee tiimka kamid ah xilliyada xiisadaha kala jiraan qaasatan xiisada caawinta ah ee habeenka isniinta baxda ayay dabcan ku soo weydiin doonaan injineerada wixii su'aal ay qabaan marka walaalaha cusub ee jaanisina waxaan soo dhaweynayaa Faarax baan soo dhaweynayaa dabcan Faarax walaal soo dhawow magacaaga saddexan magaalada aad joogto iyo dabcan su'aasha u soo gal Faarax waayahay ninka odayga Faarax walaal magacaaga Faarax waad ku soo gaabisay dhamaystir magaalada joogto su'aashaada walaal Faarax baa la yiraahdaa caadi ma maqlaysaa si wanaagsan walaal si wanaagsan ma ku maqlaa walaal Faarax baa la yiraahdaa Turkiga jooga walaalo marka walaal barnaamijkan aad baan u intii barnaamij aad u fiican walaal weeyaan waxa macallin marka ku diin rabay horta macallin kullay Soomaali badan iyo dad kale oo badan iyo dad kale oo ajaanib oo ka shaqeeya ku dhex jira waynu aragnay in badan laakiinse macallin ma jira macallin wax really oo lacag fiican oo laga sameeyay oo la garanayo ha noqoto 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 oo really oo lacag laga sameeyay macallin taasoo hadii la helo kala taqaala baclo way yaraha boon tahay tasmac waa su'aal mid arinta labaad kale macallin wax weeyaan inta badan macallin inta badan waxaan maqalnaa lama maqlaa oo wadaadada qaar bay yiraahdaan lacagtadii wax saartay waa xaraan ayba noocaasna wadaadada qaar baa sheega labada su'aalood macallin iga rajaa saar adigoo mahadsan macallin aad baad maasantay walaalahay Faarax waa kaaga mahad celinayna labada su'aalood insha Allah waxa kaaga jawaabaya leaderka weyn Sharmaarka soo dhaw ما شاء الله كله هاي هاد رومات عشان نقصد عدك في إن شاء الله بس بعد عدك واتهاي أستاذ وكا حنا عدك سيدة marka walaal horta su'aashaada koowaad waxaan wax real ah oo lacag laga sameeyay oo la taaban karo ama 500 kun ha noqoto challenge waxa sameynaa tartan baan sameynaa bil walba oo aan ku tartano dadka macaamiisha dhalinyarada macaamiisha ka ah oo nagu xiran oo IML wax ka barata taas oo aan dhahno qof aba intii uu maalintii ugu badan ee uu sameeyo ha soo gudbiyo taabtii ugu dambeeyay soo gudubtay waxa wiil dhalinyaro ah Austria jooga ma la yiraahdo uu sameeyay maalin kun iyo $600 suuqa ka sameeyay hal maalin gudaheed taa marka evidence baan haynaa mid 100 sameeyay 200 sameeyay 300 sameeyay 1,000 sameeyay iyo 20 sameeyay in walba ay awoodis oontiisa waxa kale ee ku saabsan inay xalaal tahay iyo inay xaraan tahay culimadu way jiraan qaybo ka hadlay laakiin in badan waxaan haynaa iyaguna sheegaya in islaamig ah kuma jirto qaabkaanu qaadanaa waxaana mulano lacagtan ugu jirtaa waa lacag annagu aan gashan lacag deenu nala siiyana ma lahan marka taasna waa mid aan iska hubinay way dhici kartaa in si faham khaldan isaguna wadaadku jawaabo marka waa fasilka loogu sheegay soo hareyso ala dhowro waxa qoraalka yaala filayaa in danay alaha luuq insha Allah labada qof ee aan keenay ee customerka hadii ay noqon waayaan customer joogto ah ma saameynaysaa labada qof aad marka u keentay hadii ay ka dhaco iyaga oo ay ka baxaan customernimadii waxa weeye way ku saameynaysaa fiigii 2 for free ga ana uu kugu soo fakanaya adiga ayaan iska bixinaya waqti intee leeyahay ku yiri forex-ka waa cilmi aan hadba isbedelo weeye dadaalkaaga adiga tahay laakiin 3 bilood hadduu qofku si xoog u saaro at least fahmayo ka su'aasha labaadna waxaan ustaad Sharmaarke adigoo mahadsan ustaad codkaagu gogoya amaya meel waxaan ku jiraa yaro buuqa marka waxa sameeysan intaas uun baan macnaha ku soo koobi lahaa labada su'aaloodna oo mahadsantiin waayahay ustaadku aad u mahadsan yahay ustaad Sharmaarke dabcan walaalkii su'aashan soo weydiiyay joogay Turkiga Faarax aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa ustaadka inaad jawaabihiisa aad u maqashay wax
inaanay jirin marnaba barnaamijkan ku qalloocan oo dhanka diinta ah marka la eego waxyaabaha kala duwan ee ishkaalaadka aad gelisay dabcan brokerku qayb islaamiya leeyahay waxyaabahaasoo dhanna beri laga yahay maasha allah aad baa ustaad u mahadsan tahay walaalka soo qoray IML baasaboor la'aan ma la geli karaa walaalkaas baa jirsana jira dabcan ustaadku kaaga jawaabay dabcan wuxuu ku yidhi haa aan soo dhaweeyo walaalkeen dabcan Khalid Yusuf Farax aan siinaya Yusuf Farax walaal dabcan codka iska qaad insha Allah magacaaga oo dhameystiran magaalada joogto iyo su'aasha doonaysa in lagaga jawaabo walaal waxaan joogaa maasantiin Nairobi aan joogaa Kenya marka waxaan weydiin lahay walaalaheen su'aal ku saabsan IML-ka laba qof haddaan keeno marka dhinaca keenitaanka dadka ka hadlaya marka haddaan keeno laba qof oo aan qofka saddexaad aan waayo qasab miya inaan dhiibo bisha oo lacagta oo 145 kala shay meego qasab waaye waa masatay walaale su'aashaadaas iyo dabcan su'aashii walaalku chat ka soo dhigay ee ku saabsan iMarkets Live iyaduna ee ahayd baasaboor la'aan anoo baasaboor lahayn iMarkets Live ma aqbalaysaa oo ma kamid noqon karaa iyo su'aashana ah haddii labadii qof aan keeno oo kii saddexaad waayo ma qasab baa in lacagtii iMarkets Live ee V-ga ahaa ee laga rabay aan bixiyo labada su'aalood waxa ku jimicsanaya oo jawaab waafiya naga siinaya insha Allah injineer Maxamed Jacsan waa mahadsan tahay walaalkan injineer Cabdullaahi Alcadaala aad baa mahadsan tahay walaalkan su'aalahayna weydiiyeyba Allah idin barakeeyo dhammaantiin barnaamijka si wacan buu u socdaa qurux badan walaalo badan baan arkaa oo gacanta soo taagtay haddaan labada su'aalood guda galo su'aasha passport walaal IML markaa iska diiwaangelinaysid uma baahnid passport uma baahnid kaliya waxaad u baahan tahay Mastercard ama Visa card inaad ku soo shubatid $218 dabeedna linkiga aad ka qaadatid walaalkii caawa zoomkan kugu soo cusmay ama barnaamijkan kula wadaagay linkigiisa inaad tiraadisi dabeedna saas u diiwaangelisid isaga markaa nuukaa soo xidhaya qolalka iyo tababarada markaa ayaad geli doontaa insha Allah taas waxaan filayaa intaasna ka baxayo su'aasha kale walaalkii laba qof haddaan keeno waxbarashada malageed jawaabtu waa haddii aad customer tahay laba arday kaliya aad keentid waxbarashadu waxay ku noqonaysaa bishaas bilaash bay ku noqonaysaa free ku baranaysaa haddii aad laakiin IBO ka dhigato marketing ka shaqaysanaysid waxaad markaa ku khasban tahay inaad saddex qof keentid si 150 aad bishii qaadatid waxaan kala rabaa markaa su'aashaasna waan ka jawaabay waa horta ma fahantay su'aashii mawduuc kale walaalka su'aashina weydiiyey injineer dabcan gacanta ayuu dejiyey xagga qoraalka ku soo qoro bas waaye waa maasan tahay waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo hambaliyo hadda sawirkan ee hor yaala oo ah Muna Macalin Faarax gabadh aad dhalinyaro aad daayar isla markaana ku nool wadanka Canada dhawaan bay teamkeena Sunforex ku soo biirtay waxaan filayaa 2 week bay ku jirtaa sawirkeedii hore week hore ayay soo gelinay 100 ka gaadhay sawirkana waxay gaadhay markana 600 bay gaadhay waa muddo ka yar 15 maalmood waxaan filayaa zoomka caawana dad badan luuqiga soo wacay waxay sheegeen inay Muna soo casuntay Muna hadday maqlayso gacanta soo taagato wala hadda walaalaha cusub ha u sheegto qaabka ay 600 ku gaadhay iyadoo ku jirta 15 maalmood muddo ka yar Muna gacanta soo taagato hadii ku jirto injineer Cadaala walaal Muna hadda u jeeda insha Allah bal kelmad si ula wadaagto Muna gacanta soo taagato طبعا أدان مقاعدة waxay muuqday Galaxy iyo magacyo noocaas ah G7 Prime iyo laakiin Muna gacanta ma soo taagan haddaan arkaa Muna Faarax ma sha Allah Muna u sii daa walaal hadda hostiga Allah Cadaala si ay bal hadda dhalinyarada ugu sheegto qaabkii ku gaadhay iyo waliba teamka Sunforex si waaragto insha Allah Muna soo dhaw ma sha Allah Muna walaal codka iska qaad soo dhaw Muna Faarax waa gabadha hadda la idin sheegay guusha way soo hoysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Muna walaal soo dhaw
dhammaantiin waan salaamay waa dhawahay waa ku mahadsantihiin fursadda qaaliga oo isiiseen inaa badan aan la hadlo maanta wax walba waxaa waaye dadaal muddo laba isbuuc inaa platinum 600 laba isbuuc ku gaaray waa ilaahay mahadiis iyo dadaal aan ku daray marka insha Allah aniga igu hoos qoranna waa dad shaqeynayo oo iyagiina active dhinaca forex-ka iyo dhinaca IBO-ga way active ku yihiin marka aniga hadaa gaaray adigana waa gaari kartaa waan ka sii hormari kartaa waxa waaye sida ugu sharaxaysid aad ku soo dhaweynaysid bay ku xiran tahay marka waxa dad badan waxa kula talin lahaa qofka hadduu su'aal ku weydiiyo oo ku dhaho IML iyo forex wixii xogtoo dhameystiran u sheeg qofkaas asaga decision ka qaadanayo oo insha Allah noloshiisana ka bedeli doona meeshan marka alxamdulillah engineer Maxamed Jaamac iyo team fursadan qaaliga oo aad caawa isiiseen inaad dad badan kula hadlo marka aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantahay walaashay Muna dabcan walaalaha kala duwan waa maqlayeen walaalaha qaasatan walaalaha cusub talooyinkaas iyo gubabadaas Muna bal akhyaarta cusub aad u faa'iideynaya muddo yar oo gaaban gudaheed baad guusha intaa le ku xaqiijisay walaalaha kala duwan oo caawa raba in iyaguna muddo 7 iyo 2 toddobaad baa iyaguna ku xaqiijiyay baa ku jira dabcan talada aad u soo jeedinayso inay qaadaan sidaadii oo kale si ay guushi u gaadhaan maxay tahay walaal waa mahadsan tahay marka guushan oo 2 isbuuc aan ku gaaray waxa waaye qof walba oo ila soo hadlo waa soo dhaweynayay waa u sharaxayay waa gacan qabanayay saas darteed bay dadka iyagana meesha ku soo galayeen hadda alxamdulillah dad badan baa casharada daawaday oo 24 dhameeyay qaarkood wali ma dhameen laakiin wali way wadaan marka groupya furnay oo mid ah wadada cagta saar leader ka ahay oo dadka wadada cagta lagu saarta dadka soo dhan marka meeshaasna dad badan ku caawiya habeen iyo maalinba just waxa kale samee group kale tan waa leeyahay oo la dhaho Munas team IML and forex oo qof walba oo numberkayga Facebook mise meel kale ka soo helay ila soo xiriiro igu dhaho maxaa waaye waxaan game ya qaar bas ka dhahay ma game ba maxaa waaye sidee waaye ma lacag ba marka dadkaas oo dhan groupkaas ugu wada sharaxa oo aan ugu sheegaa Zoom waa u qabtaa time ba siiye oo Zoom kaas oo 8 saac galabnimo markaan ay tahay iyagana 4 saac habeen moota waqtiga Soomaali Zoom ba u qabtaa dadkaas oo dhan waa u galaa kuwa wadada cagta saar ku jirana insha Allah waa caawinaa marka just dadaalkan iyo horumarkan waxa lagu gaaray kaliya inaad dadka kala bakhiilin information ka haysid about IML and forex qof walbana isku si baa u caawiya that's why hadda shacabkayga u sii badanayaan dad badan caawa meesha ku soo casuumina way joogaan insha Allah iyagana waxa rajeenaa inay ka faa'iideysan doonaan ما شاء الله walaal Muna si fiican oo qurux badan oo talooyin wanaagsan iyo tusaalayaal qiimo leh Cabdillah aan ka dhaxgalay waxay isticmaashay istaraatiijiyooyin aan caadi ahayn Soomaa fadlan hal mar ardayda hambaliya loo soo qormana wad maqlaysay ma filaya istaraatiijiyooyinka isticmaalaysay ka war ما شاء الله caawa Muna haysatay Muna walaal aan ka faa'iido su'aal kale aan ku weydiiyay barnaamijkan inteen laga hadirto course IML-ka 10rada inteen lag diyaarisay imisa 10 baad daawato hadda ka jawaabi kartaa su'aalooda mar kale hadda ku soo laabto ani IML waa ku cusbaysaa wada ogtihiin marka 10rada basics-ka 24 waa dhameystiray short notes ka hagaajiyay si aad dadka cusub oo qof walba oo maalin walba wax iga weydiiyo ooga sii jawaab marka short notes haystaa technical analysis-na waa hagaajiyay basics-kiisa iyo intermediate-ka advanced-ka hadda maraya alxamdulillah waa ilaahay mahadiis charts-ka everything
wax kasta oo forex ku saabsan all indicators everything hadda gacanteeda ku jiraan alxamdulillah marka qof walba oo u baahan dhinacaasna in laga caawiyo anuu ila soo xiriiraya muddo ka yar like 2 weeks baa waxaasoo dhan ku suubiyey ka hor way jirtaa inaa videoyaal youtube ka daawan jiray oo aniga buugaag soo akhrisan jiray badanaa buugaaga dadka usoo dirdiraa in la arka moogi marka buugaag badana akhriyey YouTube aa daawaday a lot of things marka AML soo galay oo cashiro badan aa kasii helana